Assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada channel-ka Samiir Ogaal. Helga waxay ahayd curadii ugu weyneed carruurtii uu dhalay Joseph Goebbels, kaas oo ahaa wasiirkii dhinaca dicaayadda iyo buunbuuninta u qaabilsanaa taliskii Naasiga ee uu hogaamin jiray Adolf Hitler. Joseph Goebbels iyo xaaskiisu waxa ay dhaleen 6 carruur ah, kuwaas oo la kala oran jiray Helga oo ah gabadha aan qisadeeda uga hadli doono barnaamijka maanta, Hedwig oo hoos uga yarayd Helmut, Hildegard, Holdine iyo Heidrun. waxaana dhammaantood magacyadoodu ka bilaabmayeen xarafka ha waxaana waalidiintoodu magacyadan ugu bixiyeen si ay u raaciyaan magaca Hitler. Hogaamiyayaashii kale ee ka tirsanaa xisbigii Naasiga waxay carruurtooda ka ilaalin jireen inay waddanka dibaddiisa u diraan, laakiin Joseph Goebbels waxa uu go'aansaday inuu carruurtiisa ka dhigo kuwa aad ugu dhow xisbiga isla markaana daacad u ah, taas oo uu arkayay mid carruurtiisa ka dhigaysa kuwa nolol meeqaam sare ah ku noolaada. waxaana 6 carruur ah ay noqdeen kuwa loo aqoonsado hormuudka carruurtii Naasiyiinta. inkastoo ay jireen sawirro badan oo muujinaya Hitler oo carruur la sawiran, haddana ma jirin carruur uu isagu dhalay. waxa uuna waqti badan ku qaadan jiray guriga wasiirkiisii Goebbels. carruurta Goebbelsna waxay ka mid ahaayeen dadka uu jecel yahay, gaar ahaanna waxa uu aad u jeclaa Helga. Helga waxay ahayd gabar aabaheed raacday, waxayna badanaa waqti la qaadan jirtay aabaheed marka loo eego hooyadeed. sidoo kale waxay la sheekaysan jirtay saraakiishii Naasiyiinta. badanaa Adolf Hitlerna waxa uu gabadhan yar u kaxaysan jiray shaybaarkiisii u gaarka ahaa. sidoo kale waxa uu kaxaysan jiray goobaha dalxiiska, isaga oo mararka qaar kula kaftami jiray gabadhan yar inay isku da' yihiin, isla markaana ay aad isugu haboonaanayaan haddii ay isguursadaan. xiriirkii waalidiintooda kala dhexeeyay Hitler iyo xisbigiisii Naasiguna waxay carruurtan gelisay dhibaato aad u weyn. maalin ka hor intii aanay ciidankii Ruushku qabsan caasimadii Jarmalka ee Berlin 22 bishii Afraad 1945 waxa Goebbels iyo xaaskiisii Magda ay carruurtoodii la galeen guri dhufays ah, kaas oo ku yaalay dhulka hoostiisa. 30 bishii Afraad 1945 waxa istoogtay hogaamiyihii Naasiga ee Adolf Hitler, waxaana halka ku burburay taliskii Naasiyiinta. markii uu soo gaaray warka dhimashadii Hitler, waxa Goebbels iyo xaaskiisii u yeereen dhakhtar Ilkood, kaas oo ka tirsanaa ciidamadii Naasiyiinta, waxayna ku qanciyeen inuu carruurtooda ku duro daawada morphine, taas oo ah daawo xanuunka baabi'isa isla markaana ka dhigta qofka mid aan wax xanuun ah dareemayn. markii ay miyir doorsoomeen, waxa Magda oo ah carruurta hooyadood ay dhammaantood afka ugu shubtay daawo sun ah oo loo yaqaan cyanide. kadib markii ay hubsadeen in 6 carruurta ahaa ay dhinteen, Goebbels iyo xaaskiisii Magdana waa ay isdileen, waxayna sidaas u sameeyeen si ay u muujiyaan sidii ay daacadda ugu ahaayeen xisbigii Naasiga. markii uu Hitler isdilayna waxa ay sheegeen in aanay isdhiibeen, sidoo kalena aanay awoodin inay carruurtooda la baxsadaan, balse ay samayn doonaan sidii uu sameeyay Hitler. sidoo kale Goebbels waxa uu askartiisii u sii sheegay in haddii aysan dhiman ay sii toogtaan, waxaana askartiisii dhimashadiisa kadib ay ku dhufteen xabado badan. intaa kadibna waxa ay ku shubeen gaas, waxa ayna la aaseen carruurtoodii. 2 bishii Shanaad 1945 ayaa ciidamadii Ruushku meydkooda heleen. wejiga Helgana waxa uu ahaa mid nabarro badan ku yaalaan, sidoo kalena daanka ayaa jabnaa. waxaana la aaminsan yahay in Helga ay ka soo kacday suntii hooyadeed siisay, ayna la dagaalantay qofkii markii dambe dilay. tani waa qisadii qoyskii Goebbels iyo gabadhii yarayd ee Hitler jeclaa. fadlan haddii aadan ku soo biirin channel-ka Samiir Ogaal, subscribe saar si aad ula socoto muuqaalada aan soo gelin doono. mahadsanid. Dein Vater ist im Krieg, deine Mutter ist in Sommerland abgebrannt, Mädchen.